الأول فليس قبله شيء الآخر فليس بعده شيء. xaflad si heersar ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen maamulka macallimiinta ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi ayaa maanta waxa ay ka dhacday gudaha iskuulka Imaam Nawawi Balcad. xafladan lagu qabtay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi ayaa waxa abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday kaalimo ka gashay tartamo oo iskuulku qaban jiray maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. qaar ka mid ah ardayda dugsiga Imaam Nawawi ayaa khudbado isugu jira English iyo Carabi ka jeediyay xafladda maanta ka dhacday dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi Balcad. أما بعد فيا أيها الأحبة أولا استسلموا بتحية الإسلام وتحية أولها السنة وردها واجب وتحية أهل الجنة في الجنة وألا وهي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية احسوني فرحا جميعا في هذه المنى من اللعب دورة لهذه البرنامج مميزة التي تقع في هذه الساحة. لذلك أريد أن ألقي إليكم خطبة تتعلق حول التاريخ المدرسة. وكما نعلم مدرستنا يسمي إمام النووي أساسيات والثانوية وقد أمس هذه المدرسة سنة 2001. Today I wanted to suggest here a topic which is about Tesla, so I am requesting my audience listen to my talk carefully. It is plays crucial role the development. It is plays crucial role the development of the knowledge. It is that you can test your knowledge if you participate in competition can know your level. But if you don't take part in competition, you can't never know. But in competition, you can't never know you can't never know your level whether you are clever one or not. In conclusion, I wanted to conclude my lecture and thank my dear teachers who allowed me to stand here and other students we participate of this program. But so goodbye. I wish you the best if Allah willing, inshallah. sidoo kale ardaydii soo abaabushay xafladan ayaa su'aalo lagu bixinayay abaalmarino waxa ay weydiiyeen ardayda kale. su'aaleen waxay ka kooban yihiin inta fasal uu ka kooban yahay dugsigeena. fasalka afaraad su'aasha dhagaha u fura waa maxay calan? afaraad waa maxay calan? calanku waa astaanta lagu jarto waddan kasta xur ah. صحيح. xafladan gabayo iyo taariikhda iskuulka ka jeediyay goobta ay xafladan ka socotay. Imaam Nawawi baa la yiraahdaa sumcaddooda waa guul sanadaha adduunyadu cilmi baa lagu salgaaro safaaradaha duulimaadkiyo iyo kuwa badahabo aqoon baa sal u ah anagana saan Soomaali u nahay meel wax laga bartiyo magac iskuul wadaagiyo Imaam Nawawi baa sal u ah iskuul laga xiiseeno caruuruhu ay ku hadaaqeen cirooluhuna ay amaaneen Imaam Nawawi baa sal u ah macallimiin caan u ah cashir diyaarintana ay ku darsadeen amal wanaagsan meesha ay ku sugan yihiin Imaam Nawawi baa saldhig u ah. maanta waxaan jeclahay inaan ku soo bandhigo taariikhda uu leeyahay iskuulka iyo qiimuhu uu inaga taagan yahay iskuulka iyo degmadeena Balcad anagu aynu nahay waxyada degmada iskuulka waxaa la aasaasay sidaad ogtihiin qof walbana oo memberkiisa uu ku fadhiyo inuu sanadii 2001 xalfadani aan maanta soo qabanayna waxay tahay xalfad soo jireen ah taasoo aan ka soo dhaxalnay arday hore maantana ka taagan Soomaaliya meel weyn oo aad iyo aad u balaaran. iskuulka waxaa la aasaasay sanadii 1 tartankanina wuxuu bilaawday mise gudoomiyaha dhalinyarada ardayga wuxuu bilaawday sanadii 2008 oo uu ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay oo nasiibkiisu uu noqday gudoomiye Cabdi Diini. inta waxay ahayd taariikhdii uu ku saabsanaa iskuulka waxaan idinku soo talagalay hal maaso oo iskuulkeena ku saabsan iyo memberkiisa inta wax xustay inta wax eegtay inta macallimiin isdistay inta maamul iyo macallimiin magacay u fadhiistaan ka soo baxay qalbiyadooda ka soo murmay magacooda kaasi oo noqday Imaam Nawawi amaanta xilbaarsanahay.
intaasi kadib maamulka xogeenka koowaad ee dugsiga Imaam Nawawi Ustaad Mawlid Cali Islaw oo ugu dambeyn ka hadlay goobta ay xafladda ka socotay ayaa ardayda iyo macallimiinta soo abaabulay xafladan quruxda badan uga mahadceliyay qaabka ay u soo diyaariyeen. maanta waxay noo tahay maalin farxad ah oo runtii ka mid ah maalmaha dugsiga Imaam Nawawi ee maartay u soo maro. maanta halkan waxaan u joognaa xaflad lagu qatimayo tartan hore u soo socday sanadka hore ay ku tartamayeen guruubo ka tirsan ama laga soo maartay bixiyay fasalada uu ka kooban yahay dugsiga Imaam Nawawi. tartankaas dheer runtii waxaa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay inuu noo qabsoomo. sidoo kale waxaa maartay aan ku hadlay magaca Imaam Nawawi maamulkiisa iyo macallimiintiisa waxaa mahad runtii gaar ah maartay halkaan ugu jeedinayaa guddiga ardayda ama guddigii ardada ee sanadka hore daadihinayay barnaamijka tartanka oo uu hogaaminayay oo hormuudna u ahaa guddoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa iyo guddiga kaleba. sidoo kale waxaa mahad gaar ah u celinayaa sidoo kale guddiga isboortiga ee maartay Imaam Nawawi Balcad oo ayagana runtii ay qabtay tartanno aad u fara badan sidaad la socotaana lagu bixiyay ama lagu guddoonsiiyay kooxihii ku guuleystay sanadkii hore abaalmarino ama koobab iyo abaalmarino oo runtii aad qiimo u leh.